maanta waxaa idiin soo gudbinayaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee kubadda cagta. nin aanan weligiisa kubadda cagta ciyaarin oo sheegtay inuu yahay ciyaaryahan kadibna siray naadi weyn. waxay ku bilaabanaysaa sheekada sida tan. 1996 kooxda Southampton ee ka ciyaartay horyaalka Premier League ayaa ku dhamaysatay kaalimaha hoose ee horyaalka, waxayna u baahnayeen ciyaaryahan ay la soo wareegaan. tababaraha xilligaasi ee Southampton, Graham Souness, waxaa soo wacay nin sheegtay inuu ahaa laacib xulka qaranka Liberia, George Weah. wuxuu u sheegay tababaraha inuu jiro ciyaaryahan la yiraahdo Ali Dia oo ay ilmo adeero yihiin. PSG u ciyaaray sidoo kale qaranka Liberia u saftay 13 jeer, uuna kula talinayo inuu la soo wareego. inkastoo been cad ay ahayd, muusan hubsan tababaraha. wuu ka aqbalay waxa uu siiyey Ali Dia fursad heshiis 1 bil ah. markii dambe waxaa la xaqiijiyey waxa soo wacay inuu ahaa saaxiibkiisa oo ay iskula jireen khiyaanada. Ali Dia waxa uu ka qayb qaatay tababarka kooxda Southampton. waxa uu la tababartay ciyaartoyda iyagoonan wax shaki ah uusan galin. Ali Dia came into training. Ali Dia wuxuu soo xaadiray tababarka maalin ka hor ciyaartii aan la yeelan rabnay Leeds United. si wanaagsan muusan u ciyaarin, ma hubo waxa uu damacsanay. waxaan ku fikiray inuu ahay laacib koob badan kusoo guulaystay oo nala tababaranaya. wargeysyada xilligaasi aad ayay u hadalhayeen laacibkan aan horey loo maqal ee reer Senegal. 23 November, Southampton iyo Leeds ciyaarta oo ay bilaabatay. Dia ayaa lagu soo daray liiska ciyaartoyda kaydka. ciyaarta markii ay socotay 30 daqiiqo ayaa waxaa dhaawacmay Matthew Lee Taser oo ahaa laacibkii Southampton laf-dhabarka u ahaa. waxaa lagu bedelay Ali Dia. garoonka dhan waxaa qabsaday magaciisa oo taageerayaasha ay ku dhawaaqayeen. kubaddii ugu horreysay ee uu qabsado ma ahayn mid xun. waxa uu helay fursad uu ku dhalin karato gool. nasiib xumo waxaa ka badbaadiyey goolhayaha. kadib waxuu ku fashilmay inuu taabto kubadda, wuuna iska dhex ordayay garoonka. qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa Leeds United dhalisay gool. tababaraha waxa uu fahmay inuusan waxba ku soo kordhinaynin ciyaarta. waxaa lagu bedelay Ken Monku daqiiqadii 85aad. ciyaarta waxay ku dhammaatay 2-0 oo ay Leeds guusha ku raacday. ciyaartaasi kadib Ali Dia muusan u safan kooxda Southampton kulan dambe. habeenkaas kadib lama arkin Ali. dib dambe maan u arkin hoteelkii uu deganaa, xitaa wuu ka dhuntay. naadigii ayaa bixiyay lacagtii lagu lahaay. Played with George Weah at Paris Saint-Germain, and last year he was playing in the second division in Germany. And we said come down and train with us for a week or so and see what's what. So we're looking. Dia claimed to have played for his country. In fact, he said he'd scored 2 goals for them days before this training session. With a CV like this and George Weah's apparent endorsement, no wonder Souness signed Ali Dia. He even played him in a Premiership match, once and once only, because even though Dia almost scored a goal, he tricked his way into the team. He told me that George ring him and said that I'm a good player. I'm not afraid to tell that I'm a good player. I can prove that. I'm going to prove that. So George Weah did ring Graham Souness? Personally, like I told you, I don't really know. Ali Dia was living the dream. For 43 minutes he got to play in a Premiership game.